ujeedada iyo erayada oo isku mid ah ayaa macnuhu kala duwanaan karaa. Waa sheekadeena maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal. Barta aad naga daawanaysaan waa Dhaymaale. Haddii aad nagu cusub tahay channelka ku soo biiro subscribe saar, haddaad hore noola joogtayna muuqaalka like saar, saaxiibada la wadaag, commenting halka hoose ee faalada nagula wadaag. Boqor ayaa habeen waxa uu ku riyooday isagoo ay ka daateen dhammaan ilkihiisa. waaga marka uu baryay ayuu dalbaday in loogu waco nin riyada fasira. Ninkii markii uu yimid inuu ku riyooday iyagoo ay daadanayaan dhammaan ilkihiisa. Ninkii wuxuu ku yiri boqoroo ma hubtaa in riyadaasi aad ku riyootay? Boqorkii wuxuu ku yiri haa. Ninkii wuxuu ku yiri waxay riyadani fasiraysaa in dhammaan ehelkaaga ay hortaa dhiman doonaan. Boqorkii inta wajigiisa isbedelay carradii ugu darray ayuu ninkii mufasirka ahaa ku xiray xabsi. Waxa uu dalbaday in loo keeno nin kale oo riyada fasira. Ninkii markii uu yimid sidii isla qisadii ayuu u sheegay. Ninkii waxa uu ku yiri ma hubtaa boqorow inaad riyadaasi ku riyootay? Boqorkii waxa uu ku yiri haa waan hubaa waan ku riyooday. Fasirka riyadaasi waxa uu noqonayaa in ehelkaaga dhammaantood ay hortaa dhiman doonaan. Boqorkii wuu xanaaqay, carradii hore ka daran. Waxa uu ku xukumay kii labaadna xabsi. Waxa uu dalbaday in loo keeno mid saddexaad oo riyada fasira. Markii loo keenay ninkii saddexaad oo ugu sheekeeyay riyadii, waxa uu ku yiri bishaarayso boqorow, ma hubtaase laakiin inaad riyadan ku riyooto? Waxa uu ku yiri haa waan ku riyooday. Wuxuu ku yiri bishaarayso waxay riyadaani fasiraysaa in aad adiga ugu cumri dheeraan doonto ehelkaaga oo dhan. Waxa ay fasiraysaa inaad adiga noqonayso qofka ugu cimriga dheer reerkaaga oo dhan. Boqorkii waa uu farxay farxad aad u weyn. Waxa uu amray in ninkan la siiyo hadiyado uu ku farxo oo qaaliya. Ninkii sidii ayuu ku galbaday. Maxay ku kala duwan yihiin inuu reerkiisa ugu cimri dheer yahay iyo in ehelkiisa dhammaan ay hortii dhiman doonaan? Macnaha waa kii, laakiin waxaa kala duwan suluuga iyo eray sugaaneedka la isticmaalay ayaa kala duwan. Sheekadan waxaan ka baran karnaa isku xirka erayada ayaa noqon kara kuwa adiga noloshaada galaafta oo geeri kugu sababa ama xabsi kugu sababa. Isla habdhiska erayadaada ayaa keensan kara inay kuu furmaan albaabo waaweyn oo guulo iyo farxad ah. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayna sheekadeena maanta. Haddii aad qisooyinka xiisayso soo raac barta Dhaymaale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.